wafdi ka socda maamulka Jubbaland ayaa waxa ay gaareen magaalada Garbaharey waxaana wafdigaasi markii halkaasi ay tageen kadib magaalada ka dhacay mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo wafdigaasi in ay yimaadaan magaalada Garbaharey ee gobolka Gado. warbixinta warka waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Xamdi Maxamed Aadan. degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado ayaa waxaa lagu qabtay banaanbax looga soo horjeedo maamul goboleedka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. banaanbaxan ayaa ku soo beegmayo kadib markii ay shalay soo gaareen wafdi uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga ah iyo wasiirka xigeenka maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland. intii uu socday banaanbaxan ayaa bulshadii banaanbaxaysay waxaa rasaas ku furay gudoomiyaha degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarsho iyo ilaaladiisa, waxaana goobta hadallo ka soo jeediyay bulshadii banaanbaxaysay iyo abwaan aadan shimbirley oo dareenkooda cabiray ku aadan banaanbaxa. أحمد مدوبة مامول كيسا جبلان مامول كذا أحمد مدوبة مامول كيسا مامول كيسا أحمد مدوبة مامول كيسا دولة رقاطة دانا إستاء دولة ديدكا أحمد مدوبة أنا ورجال أحمد مدوبة إنما حكمه أبوان آل عبد الله عرت ما كسر دوينية. السلام عليكم رجال بحري. السلام عليكم رجال بحري. هذا مالين فرحانين ومالين غروب بدن وأنا مالين أركاي حريتي رجالتي بسون نقطي. ما شاء الله. وأتي أنا قال إنك سويت نكسر أرمي شيء على أنا سفر كيفها أنت أنا ينكفنا كعير كلا أودنا نعكت بجمال كستر قبل كذا كترسن سأنو إلى العين حرني ما رأيني سأنو إلى العين شرفت لي هيبتي أنا وعين وأنا إسكتورني ولا رجال أنا ما رأي وقت بينات شوقه أتمنى لنا هل كان كم مدارات نرتدي كم مدارات ما إلى المالان بما فعنا العيب سؤالنا ويدينه هذا حلقة من عرّانة ديارية أنا كنت أتكلم نقول عرّانة معقولة لكن حقيقة تشرتها نبتها حكومة أو مامل Jubbaland wuxuu noo geystay Kenya noo geystay shabaab noo geystay xaqeena ma soo sheegay gabdhaheena la kufsanayo waa kuwa xaqirayay oo lama kufsan kayatiga waxay dileen waxa ay tirsanay qofka ay dileen anoo jooga America halka ka tirinaya qofka ay dileen 92 qof ayay dileen laga soo bilaabo 2013 ilaa 18 ka haatana konton iyo 2 qof noo dhaawaceen kayatigu إذا هذا شيء ممقل إذا على أن تقولني دون كأيا الله يا ذكي ولا جمال هيا رجيب الله وسيرين وجري حل بالنا وحقنا هيا وحنا هيا ما أريد أن أتكلم من نقول كل هنا من نقول بنيه على وندل هي بس ونقول قوي وهذا ما عليه حل جيد كان بيكون أنت الله يسكت عليه مشاركة المقارنة شر هذا أنا يا الماتا أنا استاذ حرمنا عند أسمع هدي أنا قعدت أسخبصنا هنا ما تشيري كرت وحاول يا ما أنت واحد عوار كيسين إلهي ما هدي وحاه حق ضرينا إن حبتي تعيسة وأنت أنا وبالشام الرئيس اللي قرد أيه دوابتي لو حد كوكر هذا إنسان أنا وحى وذان لمن كان أي تاي حق ضره أنا تاي واحد بغلي أو قرع أو واحد لقاطعنا صوماليا أنا واحد أنا وحن دولينا أنا أياك فارقاندي أملي بالشلة قول كجلو وحن أدرينا وهالجماعة معي مدة 3 سنة يبيو إنت هذا وحن تتاجنا إني كرم وتقول كان هذه ما أنت نيكي حكومية نيكي لوسو ترى وتقبل بتاع وحبده وجوا بالشلة لو وحن دولي إنسانين القبيل كنت في عذاب لو وحن دولي إنسانين أنا على كنت في عذاب لو وحن دولي إنسانين تقبل بما كنت في عذاب وسؤال ويدينا أيام قبيل ما كنت في عذاب ولا رجع سوا عنها
haysto maanta yaa xabadda riday waa cadaynaynaa waa xabadda riday oo bulshada laayay oo meesha aragtay taagay ninka wasiirka u sheeganayay dadka ninka maamulka u sheeganayay bulshada ninka u sheeganayay magaciisiga waa arkayseen waa kuwa ciidamada qaranka dalowga difaaca amniga kaga jiro ma qof mayna xabadaynin qof daba dhilisa oo shalay ku soo biiray weeye waxa ciidamada xabadaynaya dadka shacabka xabadaynaya ha u qaadanina waxay laayeen ciidankii qaranka difaac ku jiray ha u qaadanina ciidankii cadowga inta difaacay waa xabadda riday yaa waayo waa xabadda riday waa ninke ma maqal weli waa kee ninka xabadda riday waa kee xamdi maxamed aadan Kalson TV Garbaharey xarunta gobolka Gado